waxaan bilaabay inaan walxaha qarxa u googooyo qaybo yaryar oo u eg xanjada kadibna waxaan ku duubay bireeg si ay u ekaadaan wax caadi ah kadib waxaan soo qaatay baakid sigaar ah waxaana dhex geliyey silig qarxiye ah iyo qalab yar oo lagu raadraaco tracker sigaarkii ayaan calaamadeeyey si aan u aqoonsado qalabkii raadraacana si fiican ayaan ugu qariyey gudaha waxaan weeli yar ku shubtay kareemka shartska iska celiya kadib waxaan helay aqoonsi nin la raadinayo oo wejigayga u eg waxaan isku ekaysiiyey sawirka ninkaas anigoo isticmaalaya tattoo beenta ah kadibna suuqa dhexdiisa ayaan booliiska isku kiciyey si ay ii xiraan sidii aan qorsheeyey markii ay i qabteen waxaan tusay aqoonsigii beenta ahaa waxayna ii direen xabsi ku yaalla badda dhexdeeda xilligii baaritaanka ilaaladu waxay arkeen tattooga wejigayga ku yaalla kamana ay shakin aqoonsigayga waxay baareen sigaarkii iyo xanjadii aan watay laakiin wax shaki leh ma ay helin sidaas ayaan xabsiga ku galay anigoo wata agabkaygii oo dhan gudaha xabsiga waxaan markiiba aqoonsaday ninkii aan u socday targetka laakiin dhibaatadu waxay ahayd inuu mar walba ku wareegsan yahay ilaalo xooggan xataa xilliga jimicsiga maxbuus kale ayaa ii sheegay in dad kale ay doonayeen inay ninkan dilaan waxaan arkay tooray si qarsoodi ah gacmaha loogu kala gudbinayo xilligii cuntada waxaan kiciyey qas yar waxaana gacanta ku dhigay tooraydii ay maxaabiistu qarsanayeen markii ninkii aan raadinayay uu jimicsi samaynayay maxbuus kale ayaa soo weeraray tooraydii ayaan ku tuuray si aan naftiisa u badbaadiyo isagana aan u kasbado isagoo ii mahad celinaya wuxuu igu casuumay qolkiisa gaarka ah halkaas ayaan ku arkay dhalo khamri ah waxaana ii dhashay fikrad aan ku fuliyo howlgalkayga waxaan bilaabay inaan weeraro ninkii waxaana ku caburiyey shukumaan ilaa uu miyir beelo kadib waxaan biyo ku daray budo gaar ah waxaana ku qasbay inuu liqo jidhkiisii ayaa bilaabay inuu si xooggan u gariiro taas oo soo jiidatay ilaaladii bannaanka joogtay markii ay ilaaladu soo eegtay waxaan si degan ugu sheegay inuu tukanayo ma ay arkin wax aan caadi ahayn markaasay iska laabteen markii aan qolka ka soo baxay xabsigii ayaa qas ka dhashay waxaan markiiba u dhaqaaqay dhinaca derbi weyn oo ku yaalla dhinaca badda xanjadii qaraxyada ahayd ayaan derbiga ku dhejiyey waxaana dhex geliyey siligii sigaarka ku jiray si aan u qarxiyo ilaaladii ayaa nagu soo dhowaatay waxaan liqay qalabkii raadraaca waxaana jidhkayga mariyey kareemkii sharka iska celinayay qaraxii ayaa derbiga dalooliyey waxaana ka booday 100 mitir anigoo ku dhacay badda hoostaal si aan u baxsado